بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الشرف تلاميذ كساجوتين وحنو سلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب الشرف تله سكراب نصارى نولا جريا ولا يردد ولا لا نهاي يعني جنبتي من دت في عن مرمتهين دتك وقت كان أو أنت أفرينها وقت كان أو كن لو كن سدح كن على لا سكراب نصارى دت سوماليا دا ولا نهاي دت مسلمنا نهاي ودتك Soomaaliya dadka ugu fiican oo isku gargaaro oo hadan waxba iska xasanana oo isku naxariisto marka walaalayaal scrapka oo kale inta qofka bini'aadanka walaalka ayaa laga xasan scrapka noo saara noo la gareeya horumarkeen marka walaalayaal waxa loo baahan yahay marka simbiri inuu scrapka qofka walaalka ay ka xasana marka scrapka si fiican ugu saara walaalayaal intaas aan iga codsanaa waa codsi marka arintaas intaas ugu baxa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un adin naxdilaa dhacday walaalayaal shal waa aragteen xal maqribkii qaraxii dhacay 2 saac amal ahayd qaraxii dhacay dad waxba galabsanan oo maata ah oo dad wax bartay dhalinyaro ah haween ku jiraan nin maqaayad oo Mareykanka furtay dad Soomaaliyeed ah oo wadankoodii inoo maalgasta u imaaday maqaayadoodii dadna wax galabsanan oo macmacaan sida jalaato kaleente sambuus oo kaleente wax kasto macmacaan oo meesha uu fiican maqaayada uu shidnay oo macmacaan oo kale shaah dadka iska gacabay wax kasta loos adin wax kasto macmacaan sisan adin wax kasto macmacaan ayaan nin muslimna sheeganayo oo maanta dadkaas inoo soo dhaxgal isqarxiyo dadkaas muslimka ah dhalinyaro wax baratay oo jaamacad ka wada dhameysay oo mustaqbal u soo jeesto dalkooda inoo wax ugu taraan oo wadankooda ugu soo laabtay midkii ugu dambeeyay shalay oo safaaradda Soomaaliya Itoobiya ka shaqeynaa shalay bas oo wadanka soo gal walaalayaal waxaas oo kale wax loo adkeysan kara ma aha dadkeena Soomaaliyeed diinta ku yar dhalinyarada diinta simbir waxa loo baahan yahay qof kasto muslim ah oo Soomaaliyeed ah gurigiisa inuu ka bilaabo oo ciyaalka la baro waxbarashada diinta si fiican loo wadayo waayo qofkan maskaxda laga xadaayo waxa laga dhacsiyaa diinteena nusteexeleeda diinteena ma dhihin qof shahaadahayo maanta waxba galabsan oo maqaayo ganacsi ah ala qarxiyo meel ku dhahda diinteena islaamka ma jirta wax banaan ma aha dadkan diinta sheegana ciyaalkan laga soo dhacsiyaa maskaxda maandoori loo isticmaalayo wax kasta loo isticmaalayo oo suun lagu soo xirayo isqarxinayo waxa loo dul qaadan kara ma aha qof muslimna dhashay qof Soomaaliyeed dhashay wax anaga dhaxdeena waa qofka la iska ilaaliyo waa qof Soomaaliyeed ninka isqarxiya waa qof Soomaaliyeed qofka soo dhiibay waa qof Soomaaliyeed dadkan dad ajnabi ah ku shaqeysta laakiin waxa la hada ciyaalkeena maskaxda laga xado marka ciyaalka waa inoo ka taxdirnaa wax barnaa simbir waxa soo kaleenta sidii ay ku noqonin qof maskaxda laga xado waa cunugan haduu jaahil yahay oo maanta laga dhacsi jana ku galaysa maxaa jana gala qof ashahaadaha oo jana ku gala ma oga diintii oo aqoonin qofka hadoo gara lahaay qofkan wala dooda lahaay mana ka ogolaanay waxa soo kale marka walaalayaal waas ognahay halaga taxdir ciyaalka wax ala baro walaalayaal Ilaahay subhanahu wa ta'ala wadankeena nabadgeliyo anoo socod nabadgelyadiisa sidii hore ma aha marka dambe way soo roonaa hoosa nimankan taatikadii hore way bedeleen taatikadii isla baawur isqarxinaayeen wax kasta sameeyay dagaal foolka ay soo qaad jireen babooyna tuur jireen wixii way soo dhamaadeen hadda waxay keeneen qof nin qof kasto bini aadan socdo mala baarama waa may hatta tikadiya bedelan waa qof qarax lagu soo xira qofkan wadada maray kaal waa lagu baarama leh waa may qofkan soonka ku xiran waa qof Soomaaliyeed oo wada oo socdo waa wadadan dadkan meel kasto joogto qof socoto mala baari kara may taatikada way bedelan marka insha Allah idin hay'adaha amniga waxay ka sii qaadaan cashir iyaga way bedelaan si u dhaqmaana loo dhaqmaa nimanka waa gawaabsi waqtigooda wuu dhamaaday marka insha Allah Ilaahay idinkiisa wadankiina horumar iyo wanaag u socda woona gaara gacmaha alees qabsado mid kale maalmaha wax soo baxday musharaxiin Soomaaliyeed oo Soomaali sheeganahay maanta qodobada 18 qodob soo saaray Ilaaha baa kugu dhaariyay 18 qodob hadaa akhris hal qodob oo maanta dalka iyo dadka anfacay oo Soomaaliyeed midna ma ku jiro waa qodobo la soo dadka qodobo loo soo miriwa laakiin waxaas wadankeena kama soconayo Ilaahay idinkiisa wadankii hore u soconaa doorasho aada wadankii kala dambeyn in nabadgeliya soo laabanayso
meel kastoo gacmaha isqabsano quraanka abadsano marka insha Allah walaalayaal wadankiina aloo wada duceeyo marka soo dhawaada subscribe noo saara noo la gareeya walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh